inta aana filimka bilaabin waxaan xasuusinayaa inay YouTube-ka subscribe dhahdeen muuqaalkan aad like saarto waa kuma asantaa daawashadaada. Filimkeenu maanta waxa uu ku saabsan yahay mid ka mid ah halyeeyadii soo maray qaaradda Afrika sanadkii 1990kii ugu dambeyntii waxa xabsiga laga sii daayay Nelson Mandela kadib 27 sano oo xirnaa. Sii deyntiisa waxaa si xun uga carooday cunsuriyiinta caddaanka ah oo arkay nin argagax ah, balse waxay dhiirigelisay in dadka madowga ah ay si adag uga dagaalamaan xuquuqdooda, taasoo dalka ka dhigtay mid qarka u saaran dagaal sokeeye. Mandela waxa uu jeedinayaa khudbad uu dadka uga baaqayo inay hubka dhigaan maadaama uu aaminsan yahay in dalka loogu noolaado si midaysan. 4 sano kadib ugu dambeyntii dadka madowga ah way codayeen, taasoo suurtagelisay in Mandela uu noqdo madaxweynaha dalka South Africa. Inkastoo uu yahay nin caan ah haddana madaxweyne ah ma yaqaan isla weyninka, taasoo keenaysa inuu si xataa sirrihiisa goglado. Mandela waxa uu bartaa dhammaan magacyada shaqaalaha xafiiskiisa, waxa uuna weli sii wataa socodkiisii subaxnimo inkastoo hadda uu la socdaan laba waardiye. Dadka caddaanka ah weli kuma qanacsan natiijada doorashada. Dhammaan wargeysyadu waxay isweydiinayaan in uu yahay nin awood u leh inuu xukumo dalkan. Cadowga Mandela waxaa ka mid ah waalidiinta Francos oo ah kabtanka xulka qaranka, waxa uuna dhageysanayaa hadallada ka soo yeeraya aabihii oo leh wiilkaygu waxa uu lumi doonaa mustaqbalkiisa maadaama dalka hadda ay xukumaan dadka madowga ah. Subaxii ugu horreeyay Mandela ee xafiiska waxa uu arkayaa miisas maran iyo shaqaalaha oo xirxiranaya alaabtooda. Dadka caddaanka ah waxa ay rajeynayaan in la eryi doono. Mandela waxa uu qabtaa kulan uu ku sheegayo in qof walba uu xor u yahay in uu tago haddii uu asigu rabo, balse qof looma eryi doono afkiisa iyo midabkiisa. dhexdhexaadnimadana sidoo kale waxay saameynaysaa waardiyaashiisa kuwaasoo loo baahan yahay in la kordhiyo. Ilaalada madow kuma qanacsana fikraddan, waxa ayna xasuusiyeen Mandela in nimankanu ay yihiin kuwii isku dayay dhowaan inay dilaan, laakiin Mandela waxa uu aaminsan yahay fariinta uu bulshada u dirayo inay tahay mid muhiim ah. Haddii uu rabo qaran midaysan, waa inuu asiga tusaale u noqdaa isu soo dhoweynta iyo cafinta, taasoo meesha ka saaraysa cabsida. Fikraddan weli si fiican uguma helin ilaaliyayaashiisa, balse waxay u hoggaansamayaan amaradiisa. Waxa ayna bilaabayaan in waardiyaasha cusub ay baraan sida loo ilaaliyo madaxweynaha. Tusaale ahaan, Mandela waxa uu rabaa xataa waa inay dhoola caddeeyaan haddii xitaa ay bulshada gadaal u riixayaan. Hawshoodii ugu horreysay waxa ay noqotay waa inay ilaaliyaan madaxweynaha intii lagu jiray ciyaarta u dhaxaysa Springboks iyo England. Springboks waa koox ka kooban inta badan ciyaartoy caddaan ah marka laga reebo Jester. Inta badan taageerayaasha kooxdan waa kuwa ka soo horjeeda Mandela. Xaaladuna waa mid aad u kacsan. Dadka madow ee Koonfur Afrika waxa ay taageerayaan kooxda England halkii ay taageeri lahaayeen kooxda dalkooda ka soo jeeda. Mandela si buuxda ayuu u aaminsan yahay waardiyaashiisa, waxa uuna si buuxda uga soo baxaya garoonka isagoo isku dayaya inuu gacan qaado labada koox isagoo iska dhatiraya kuwa buuqaya. Si uu dadkiisa u dhiirigeliyo waxa uu la hadlayaa dadweynaha, sidoo kale waxa uuna u mahad celinayaa dadka daawanaya ciyaarta. Ilaaliyayaashiisu waxa ay ka saareen garoonka daqiiqada ka hor inta aysan bilaaban ciyaartu. Nasiib darro, Springboks waa ku guuldareysatay ciyaarta, taasoo muujinaysa mustaqbalka madow ee sugaya koobka kooxaha adduunka ee lagu qaban doono dalka Koonfur Afrika. Falaqeeyaha ciyaarta ee Johan waxa uu leeyahay Springboks waxa ay guuldaro u keeni doontaa xulka qaranka, mana mudna inay xirtaan maaliyadda. Si kasta oo ay xaaladdu uga sii darayso, Mandela waxa uu helayaa fariin ka timid gabadhiisa oo sheegaysa in ay baaqisay kulankii iyadoo aan sabab cad sheegin. Sumcadda Springboks ayaa hoos u dhacday ilaa uu wiil madow diiday inuu xirto maaliyadda kooxda, isaga oo ka baqaya haddii uu xirto shaarka in la garaaco. Maalintii xigtay, golaha ay madowga hogaaminayaan waxa ayna go'aansanayaan in Springboks laga qaado magaca iyo maaliyadda iyo midabka, inkastoo xoghayihiisu uga digayo tallaabada ay ku yeelan karto sumcaddiisa. Mandela waxa uu go'aansaday inuu soo farageliyo asigoo kulanka ka jeedinaya khudbad, una sheegay in uu taageersan yahay Springboks. Waxa uuna tusaale u soo qaataa waayihiisa xabsiga, isagoo u sheegaya in caddaanku ay xireen balse hadda aan lahayn cadow ee la yahay dad siman. Nasiib darro, Springboks waxay ku guuldareysatay ciyaartii xigtay. Mandela waxa uu bilaabayaa safar uu ku tagayo wadamo kala duwan, ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Jabbaan, isagoo halkaas ka jeedinaya khudbado. Markii uu soo laabto, waxa uu ku jiraa socodkiisii subaxnimo, balse wuu niyadjabayaa markii uu mid ka mid ah waardiyaashiisa cusub u weydiiyey qoyskiisa. Mandela si cad ayuu uga xanaaqayaa, waxa uuna ku laabanayaa gurigiisa, waxaana ilaaliyihiisii hore u sheegayaa ilaaliyaha kale in Mandela ay kala tageen xaaskiisii. Subax kale, Mandela waxa uu arkayaa war weyn oo ku qoran jaraa'idyada oo sheegaya in heerka dambiyada ay kor u kaceen, iyo macallinkii iyo maamulaha Springboks oo laga eriyay shaqadii. Laakiin Francos weli waa kabtan, taasoo Mandela farxad gelisay. Saacado kadib xafiiska, Mandela waxa uu qaatay mushaarkiisii ugu horreeyay asiga oo la yaabaya inta uu leeyahay, isagoo go'aansaday in mushaarkiisa 3 meelood meel uu sadaqeeyo, isagoo rajeynaya in siyaasiyiinta kalena ay sidaas sameeyaan. Waxa kale oo casuumaad u fidinayaa Francos si ay u wada shaahaan ugana wada hadlaan mustaqbalka Springboks. Francos waxa uu sheegayaa inuu si fiican u hogaamin doono. Mandela waa la qabaa fikirkaas, balse waxa uu sheegayaa inay kooxdu u baahan tahay dhiirigelin.
si ay heer sare u gaarto. Markii uu Francos baxayo, waxa uu fahmayaa in Mandela si dadban uga codsanayo in uu u baahan yahay in kooxdu ay ku guuleysato koobka adduunka. Dhowr toddobaad kadib, Mandela waxa uu la kulmayaa gabadhiisa, balse way ka xanaaqsan tahay sababtoo ah waxa uu shaqaaleysiiyey booliskii ka saaray qoyskiisa guriga intii uu asigu xirnaa. Waxa ayna si degdeg ah u soo afjaraysaa wadahadalkiisa. Kadib Mandela waxa uu la xiriirayaa qabiir ciyaaraha si uu wax uga barto ciyaaraha rugby-ga. Markii uu maqlay in ciyaaraha ay daawan doonaan malaayiin qof, waxa uu la yimid qorshe uu ku tusayo South Africada dhabta ah dunida. Kooxda Springboks waxay si adag u tababaranaysaa markii uu imaado madaxa kubadda cagta, una sheegay in kooxdu ay tababar sii doonto carruurta tuulooyinka saboolka ah ee dalka oo dhan. Ciyaartoydu kuma qanacsana arrinkan, balse waa inay amarka qaataan sababtoo ah fikirkan waxa uu ka imaaday Nelson Mandela. Captain Francos waxa uu taageersan yahay qorshaha. Maalintii xigtay, kooxda waxaa la geynayaa mid ka mid ah tuulooyinka ugu saboolsan. Carruurtu waxa ay garanayaan kaliya Chester oo si farxad leh loo soo dhaweynayo, laakiin saacado kadib carruurtu iyo ciyaartoyduba si weyn ayay u wada baashaalayaan. Markii la gaaro dhamaadka maalintii, kooxdu waxay laabanaysaa iyadoo dhiirigelin haysato. Muuqaalkii tababarkaas ayaa lagu soo bandhigayaa warbaahinta. Waxa uuna Mandela u soo bandhigayaa golihiisa wasiirada asigoo u sheegayo in muuqaalkan uu ka qiimo badan yahay boqolaal khudbadood oo aan jeedi lahaa. Diyaarad ay dusheeda ku sawiran tahay Chester oo ah halka ciyaartoy oo madowga ah ee ku jira ciyaartoyda ayay bilaabeen inay kooxdu ku safraan, waana qayb kale oo ka mid ah ololaha dadka lagu midaynayo. Dad badan oo madow ah ayaa bilaabaya inay taageeraan kooxda meel kasta oo ay tagaan. Joan oo ah falaqeeyaha ciyaarta wuxuu sheegayaa inuu rajo fiican leeyahay. Mandela waxa uu bilaabayaa inuu xasuusto dhammaan magacyada ciyaartoyda markii uu salaami tago si uu ugu dhawaaqo magacooda. Waxa uuna ka soo muuqanayaa barnaamijka Johan si uu ugu dhiirigeliyo dadweynaha taageeridda kooxda qaranka. Kooxda Springboks waxa ay wax walba ku ordayaan wadooyinka. Francos waxa uu isku dayayaa in uu ku qanciyo ciyaartoyda inay si fiican u bartaan heesta calanka. Nasiib darro, inta badan ciyaartoydu way diidayaan. Maalin ka hor ciyaartii ugu horeysay ee koobka adduunka rugby-ga, Nelson Mandela waxa uu booqdaa kooxda. Nasiib wanaagsan ayuu u rajeynayaa isaga oo ugu yeeraya magacyadooda. Francos waxa uu sheegay in Chester uusan joogin ciyaartan sababa dhaawac darteed. Mandela waxa uu siinayaa warqad uu ku qoray gabay oo ka mid ahaa gabayadii uu isku dhiirigeli jiray intii uu ku jiray xabsiga. Maalintii xigtay, Nelson Mandela waxa uu ka qayb galayaa ciyaarta. Waxa uuna la dabaaldegayaa dadweynaha kadib markii Springboks ay garaacday Australia. Habeenkaas, Mandela waxa uu ka qayb galayaa casho sharaf halka ay kooxdu ku dabaaldegayso baarka. Francos waxa uu xasuusinayaa in ciyaartoyda laga rabo inay 6 subaxnimo soo toosaan. Subaxii xigtay, Francos waxa uu hogaaminayaa ciyaartoyda si ay u tagaan dekedda, halkaas ayagoo doon ka raacayo si ay u gaaraan Robben Island oo ah jasiirad. Halkaas Mandela waxa uu ku xirnaa 18 sano oo ugu horeysay xabsiga. Francos waxa uu arkayaa qol yar oo ku xirnaa jira Mandela, wuuna la yaabayaa sida madaxweynuhu uga dulqaatay sanado badan oo xabsi ah, haddana uu cafi karo kuwii xiray. Markii ay waardiyaashu u yimaadeen Mandela si ay ugu wadaan socodkii subaxnimo, waxa ay arkayaan isagoo miyir beelay ee yaal bannaanka guriga. Dhakhtarku waxa uu sheegayaa in Mandela uu si aad u daalan yahay uuna ka qayb gali karin ciyaarta soo socota, laakiin Chester uu ka qayb galayaa. Springboks wayna guuleysanaysaa ciyaartaas. Ciyaartii xigtay waxa ay la ciyaarayaan Faransa, wayna ka badanayaa iyadoo roob saa'id u da'ay. Mandela oo ku maqnaa markaas heshiis ganacsi, waxa uu maqlayaa inay kooxdu gaarto final. Nelson Mandela waxa uu fiirinayaa jadwalkiisa isaga oo hubinaya inuu ka qayb gali karo ciyaartaas. England waxa ay ku haraysaa semi-finalka, sidaa darteed waxaa final imaaday kooxda cabsida badan ee All Blacks ee ka dhisan New Zealand. Guulaha ay kooxdu gaartay waxay keenaysaa saameyntii uu rabay Nelson Mandela. Shacabka oo dhan ayaana hadda taageeraya kooxda. Waardiyayaasha Mandela waxay bilaabayaan inay wada ciyaaraan ciyaarta rugby-ga ah iyagoo hadda uu ka ba'ay cabsidii kala shakigii. Francos waxa uu tigidhada ciyaarta u geynayaa Nelson Mandela isaga oo siinaya mid ka mid ah gabadha shaqaalaha ah. Markaas Mandela waxa uu dalbanayaa in taariikhda All Blacks wax looga sheego. Mandela waxa uu fahmayaa sababta ay u cabsi badan yihiin kooxdan. Waxa uu bilaabayaa siyaabo uu ku dhiirigeli karo kooxda Springboks si ay uga guuleystaan kooxda All Blacks. Subaxii ciyaarta kama dambaysta ay dhacaysay, kooxda Springboks waxa ay ordayaan sidoodii hore. Dadka xaafadaha dhammaantood waxay bilaabeen inay taageeraan kooxda. Garoonka ciyaartu ka dhacaysay waxa buux dhaafiyay dad madow iyo caddaan isugu jiro. Xitaa wiilkii hore u diiday shaarka kooxda inuu xirto ayaa hadda yimid. Johan halkan ayuu joogaa asigoo si wanaagsan uga hadlaya kooxda. Ilaaliyayaasha si saa'id u taxadaraya halkan garoonka sababtoo ah waxaa jooga dad saa'id u tiro badan. Waxa ayna baqdin dareemayaan markii diyaarad si saa'id ugu soo dhawaato garoonka. Nasiib wanaag kuma dhicin garoonka, laakiin waxay fariin nasiib wanaag u diraysay madaxweynaha ka hor inta aysan bilaaban ciyaartu. Fariintaasina waxay noqotay mid aad loo jeclaado. Dadkii madowga ah hadda waxay diyaar u yihiin in ay markay kooxda Springboks garoonka soo gasho ay u sacbiyaan. Mar kale Mandela waxa uu galayaa garoonka isagoo gacan qaadaya labada koox, laakiin markan waxa uu xiran yahay shaarka cagaaran ee kooxda, taasoo muujinaysa in uu taageersan yahay kooxda. Ciyaartu waxay bilaabanaysaa kadib markii la qaaday heesta calanka. Markan laakiin kooxda Springboks waxa ay si sax ah u qaadayaan dhammaantood heesta calanka. Kooxda All Blacks waa koox saa'id u xoog badan, waxayna si degdeg ah u bilaabeen inay helaan dhibco saa'id ah, laakiin Francos waxa uu bedelayaa istiraatiijiyadda kooxda. Ugu dambeyntii, kooxda Springboks waxa ay awoodeen inay keensadaan barbaro. Waqtigii loogu talagalay ciyaarta way dhamaatay iyadoo natiijadu ay tahay 9-9. Sidaa darteed waxaa lagu darayaa 20 daqiiqo oo dheeraad ah. Inkastoo ay dhammaan ciyaartoydu daaleen, haddana waxay u ciyaarayaan si adag. 5 daqiiqo iyadoo ay ka dhiman tahay ciyaarta, Springboks waxa ay heshay fursad ay ku hormari karto gool. Kadibna waa ay difaacdeen waqtigii ka haray ciyaarta.
taas oo noqotay istaraatiijiyad guuleysatay. Garsooruhu waxa uu ku dhawaaqayaa firimbiga isagoo sheegaya inay ciyaartii dhamaatay. Springboks waxa ay noqotay horyaalka cusub ee adduunka. Dadka South Africa ayaa guusha si wadajir ah uga dabaaldegaya iyagoonan eegayn midabka. Mandela ayaa guddoonsiinaya koobka Francos, wayna isgacan qaadayaan ayagoo isugu mahad celinaya waxa ay dalkooda u qabteen. Kadib gaarigii Mandela waxa uu ku xayirmayaa isgoys, sababtoo ah waxaa buux dhaafiyay dadweynaha u dabaaldegaya guusha ay gaareen qarankooda. Mandela waxa uu sheegayaa darawalkiisa in uusan raadin waddo kale, sababtoo ah waxa uu rabaa in uu daawado midnimada ka muuqata bulshadiisa. Waa ku mahadsantahay daawashadaada. Subscribe, like, share.